بسم الله الرحمن الرحيم. سوماليي سند عصب iyo safxad cusub oo sadarkeedu yahay sulux iyo saamaxaad. taariikh ahaan Soomaalidu ma aha dad fidna jecel ama nabadiid ah sida qoraalada iyo warbaahinta reer galbeedka ay u dhigaan. markay fidna jirto waxa loo wajihi jiray si iijaabi ah oo xal diin iyo xeer ku dhisan. marka aad dib u eegto oraahyada awowayaasheena Soomaaliyeed badankoodii waxa ka muuqda nabad jecel iyo fidna ka carar sida allow col iyo abaar naga hay, allow colka iyaga col ku furo, allow nabad noo naadi, laablakac lurba ka dhasha. rag waxaad walaal uga weydid waran uga ma heshid, rag waday oo waaye waxay walaalo ku dhaamaan, rag idaa kuuguma daayo oo aynu isdayna ayuu kugu daayaa. xitaa maamaahyada loo yaqaan shanleyda ee Soomaaliyeed waxaa ka mid ah mid oranayso shan balaayo allah laga magan galaa, cara aan laga soo noqon, colaad aan laga heshiin, cudur aan laga boogsan, cilmi aan lagu intifaacin iyo ceer aan laga dhaqan. maanta runtii waxaa moodaa shantii balaayo oo awowayaasha Soomaaliyeed ay ka magan gali jireen inay na asiibtay oo na haleeshay. maxaa yeelay waxaa batay fisqiga, dunuubta, fidnada iyo xaqdaro aan dhexdeena isu geysanay, taasoo u horseeday gabood fal in la isu geysto oo u horseeday is-amin la'aan, is-aqbalid la'aan, is-tanaasulid la'aan. hooyooyin badanna ay ilintooda ku dhammaatay. hooyo cabiraysa xanuunkeeda ayaa waxay tiri ilinteeda inta indhaha ka dhammaatay ayaan qalbiga ka ilmoodaa. ilinta qalbigana waa ka xanuun badan tahay ilinta oo isha laga ilmoodo. runtii walaalayaal, maanta mar dhow waxaa inoo dhalan doona sanadkii cusbaa ee islaamiga ahaa ee hijriga ahaa ee nabigeena iyo asxaabtiisa ay ka hijroodeen dulmiga una hijroodeen nabadii iyo xaqi. marka taasoo u furtay safxad cusub ummadda islaamka. anagana haddaan Soomaalinahay walaalayaal waxaa nala gudboon in sanadkan cusub oo islaamiga ah inaan safxad cusub furano oo sulux iyo saamaxaad ku sadaraysan insha allahu tacaala. waa inaan muujinaa rabitaan dhinaceena ah oo sulaxa aan ka qoomameynaa khaladaadkii hore iyo dunuubtii hore aan galnay. ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri in yurida islaahan yuwaffiqu Allahu baynahuma, yani haday ay doonaan islaax ilaahayna waa waafajinaya. yani in yurida islaahan yuwaffiqu Allahu baynahuma waa waafajina. marka waa inaan la imaanaa rabitaan oo aan rabno sulaxa iyo saamaxaada insha allahu tacaala. runtii maanta yidadiilo ayaa muuqata oo bulshada Soomaaliyeed waxaa moodaa dhinaca sulaxa inay u janjeerto. tusaale ahaan markaa fiiriso dib u heshiisiinta ka socda gobolka Galmudug, maamul goboleedka Galmudug, macnaa taas waa mid diilo mudan. ilaahay waxaan ugu baryeynaa walaalaheena inuu tawfiiqda waafajiyo, kulankoodana kulan miro dhala inuu ka dhigo oo nabad u horseeda hadduu ilaahay yiraahdo. maxaa yeelay gobolada dhexe waa wadnihii wadanka. wadnaha waxaa la ogyahay waa xubinta ugu muhiimsan jirka aadanaha. hadduu wadnaha caafimaado jirka oo dhan ayaa caafimaadaya, sida nabigeena uu yiri jirka aadanaha waxaa ka mid ah mudqo. mudqadaasoo qalbiga hadday hagaagto jirka oo dhan hagaagaya insha allahu tacaala. galmudug oo hagaagto waxay u horseedaysaa Soomaaliya oo dhan oo hagaagto hadduu ilaahay yiraahdo. marka waxaan leeyahay ergooyinka walaalaheena ah gobolada dhexe ka qayb galaya dib u heshiisinta, yani macnaa waxaan ku waaninaynaa inay la yimaadaan caqli wadareed oo caafimaad qaba. sida Soomaalida ay tiraa ergo waxaa loo dirsadaa nin dhurwaacay uga adag, kudkuda gaajo uga adag, kurtun qorax uga adag, dhagax qabow uga adag. waxaan idin leenahay walaalayaal, odayaasha dib u heshiisinta ka qayb galaya iyo siyaasiyiinta iska ilaaliya hab dhaqanka ku salaysan cudurka ahaa aan wax qalano midiyahana kala qarsano, isla wadaaga wada qaybsada hadduu ilaahay yiraahdo. sidoo kale waxaan ilaahay ka baryeynaa khilaafaadka ka jira deegaanada jubbooyinka iyo shabeelooyinka in xal waara loo helo oo wada hadal lagu dhameeyo. sida Soomaalida ay tiraa xaaje war ku aado warma looma doonto. marka waxaan leenahay dadka isu haysta jubbooyinka iyo shabeellada hoose, shabeellada dhexe, khilaafaadka ka jira iyo xuquuqda la iska sheeganayo in yani wada hadal lagu dhameeyo hadduu ilaahay yiraahdo. maxaa yeelay jubbooyinka iyo shabeellooyinka waa calooshii wadanka. macnaa Soomaalidana waxay tiraa calool bugta iyo waji furfuran la isku waa. calooshii dalka hadday bugto dalka ma dhool cadeyn karo,
dalka si uu dhoola cadeeyo waa in caloosha la daaweeyaa marka waxaan u baahanahay dadaal wadareed oo lagu soo afjaro colaadaha ka taagan jibooyinka iyo shabeelooyinka hadduu ilaah yiraahdo maxaa yeelay barwaaqada iyo cadliga waa isbarbar socdaan waxaa hubaal ah haddii walaalaha khilaafka ka dhaxeeya ee jibooyinka iyo shabeelooyinka oo loo kala cadli falo ay asi saamaxaan oo ay wada shaqeeyaan waxa hubaal ah in deegaanadaasi ay quudin karaan qaarad dhan maxaa yeelay waa deegaan beereed qaarad dhan ayay quudin kartaa laakiin waxaa loo baahan yahay in qalbiga la isku furo sidoo kale waxaan ilaahay ka baryaynaa khilaafaadka siyaasadeed ee walaalihiin Somaliland na dhex yaal in xal waara loo helo oo dhinac walba yani insha Allah ta'ala oo cuntama hadduu ilaahay yiraahdo waxaa naga waana ah in la joojiyo yooyootanka iyo hadallada midi ku taaga ah ee sii fogeynaysa walaalaheena insha Allah ta'ala waxaa loo baahan yahay garnaqsi degan iyo maskax wax garata oo u furan fikradaha dhinaca kale oo walaalkii midnimo iyo kala go midkii roon rabbiya oo ilaaha og wixii roon in la midoobo iyo in la kago yani in la kala go'aaba runtii waa arin u baahan dood furan una taal dadka iyo geedi socodka taariikhda waxa kaliya muhiim ah inta xalka waara laga helayo oo khilaafka siyaasadda xal loogu helayo inaan joogteyno oo aan mar walba daa'ino walaaltinimada martigelinta ganacsiga ka dhaxeeya iyo isguursashada ka dhaxeeya deegaanadaas hadduu ilaahay yiraahdo runtii maanta waxaa khatar ku jirta in magacii Soomaaliya ahaa la baayo taasoo u baahan si wada jir ah iyo si kala jir ah loo badbaadiyo hadduu ilaahay yiraahdo si kastaba ha ahaatee waxaa muhiim ah inaan qalbiga la federaaleynin maxaa yeelay qalbiga hadduu federaaloobo waxay u horseedaysaa inay khuluubtoo dhan ciriiri noqoto khuluubtana hadday ciriiri noqoto dhulkaaba ciriiri kula noqonaya dhulka ayaa waxaa kula noqonaya sida maqaarka sagaarada oo kale Soomaalidana waxay tiraahdaa maqaar sagaaro iga kac mooye iga durug ma leh macnaha dhulka dhan ciriiri kula noqonaya runtii dhulka Soomaaliyeedna waa dhul aad u baaxad weyn Soomaalina waxay tiraa dhulka nin nool iyo nin dhintayba wuu deeqaa runtii dhulka Soomaaliyeed baaxadeeda iska dhaafay 12 milyan hadda oo Soomaalida ku nool waxay deeqaysaa 7 bilyan oo adduunyada ku nool ayay ku filan tahay dhulka Soomaaliyeed marka waxaan leenahay walaalaheena qalbiga la isku furo hadduu ilaahay yiraahdo maxaa yeelay qalbiga waa xurriyadda ugu weyn oo bini aadanka haysto gumeysiga xuduud uma sameyn karo qalbigiina haddii aad Soomaali weyn ka dhigtaan kan jooga Jigjiga kan jooga Djibouti kan jooga Islii kan jooga Muqdisho kulli waxay noqonayaan Soomaali weyn hadduu ilaahay yiraahdo qalbigiina xuduudihi gumeysiga ha gelinina qalbigiina ha federaaleenina hadduu ilaahay yiraahdo sidoo kale runtii waxaa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay maskax cusub la yimaadaan hadduu ilaahay yiraahdo dhalinyarada waa hantidii wadanka ugu weynayd macna hantidaasna haddii aan يعني لو جهين هرمرك ودنك هلاك أي نخونيسا مرك وحن كوانينا دليل مرك هراء وحن أسود جديننا يعني دليل وين محايا لي رنتي دليل وأي جبين كالنتي لجربي دجالنا وحال يري وذياشة أيا بالله دليل ناس كل ماتا dhibaatadu ugu weyn oo maanta sababtay waxay tahay da'yarti dalkii ayagoo wali qaangaarin ayaa qoryo la isugu dhiibay lagana dhigay dhuxul lagu shito dagaalka sokeeya sidoo kale waxaa jira dhalinyaro aad u badan oo ka aamusan arinkan oo leh anaga dhexdhexaad baan ka nahay arinkan runtii dhexdhexaad wax la dhahayo ma jiro nabigeena wuxuu yiri انصر أخاك ظالما أو مظلوما يعني ولالك أقرقر هدو قردرينيها يهدي لغا قردرينيها هدو قردرينيها أشيك ولالو سام معها جوجي وقردرنتها ده هدي لغا قردرينيها نقرتي سؤسو نخ لنا كلنا وحجر لن يرى بدن oo diaspora galay oo wali moodo in qabiilaysiga oo wadanka markay ka tageen jiray inuu jiro oo wali ku dhakafaarsan qabiilaysiga oo yani mar walba oo ku fikiraya dhinaca qabiilaysiga waxaan leenahay Soomaaliya taa waa ka baxday dhalinyarada hadda joogta dalka khutulyoonkoodii ay bursanayaan ay raadinayaan khutulyoonkoodii marka waxaan leenahay dhalinyarada diasporada jooga iska bixiya qarasta qabiilka hadduu ilaahay yiraahdo dhinaca kalena taariikhda adduunka waxay tusaysaa in dhalinyarada badana ay sabab u noqdaan nabadeynta waa yeelka ayaga ugu dheereeya sidii loo tiigsan lahaa mustaqbal dhaama xaaladda taagan taariikhda dhalinyarada Soomaaliyeed waa la og yahay xisbigii SYL
sida ay ugu horseedeen wadanka inuu gumaysi ka baxo sidoo kale markii aad fiiriso Madiina al-Munawwara nabiga dadkii heshiiska la saxiixday oo nabadda ku soo oogay waxay ahaayeen dhalinyaro oo يعني markii la isku geeyo 24 jir ah macna waa muhiim inay dhalinyarada insha Allah taala qayb weyn ay ka qaataan sidoo kale warbaahinta waxaan leenahay waxa soo batay dad badan oo warbaahinta gaar ahaan social media ku talax tagaya oo warxumata shiil iyo laablakac iyo caadifad ay hogaaminayso taasoo u horseedaysa in dabkii hore shidna dab kale uu ku darsamo marka waxaan ku waaninaynaa walaalaheena adeegsanaya social media macna inay dhowraan xuquuqda suxufiyadda oo ay noqdaan yani suxufiyiin nabadoon ah oo dalka insha Allah taala ugu horseedayo nabad hadduu ilaahay yiraahdo ugu dambeyntii waxaa la yiraahdaa dhalmo kasto foolo ayaa ka horeysa runtii dhulka hooyana foolada nabadda waa ku dheeraatay dhowr jeerna waa ka dhicisowday ilaahay wuxuu naga ballan qaaday inna ma'al usri yusran dhibka dheef ayaa ka dambeeya abaartana aaran ayaa ka dambaysa si taas loo helo Soomaaliya waa inaan la imaanaa rabitaan aan rabno sulxiisa maxad hadduu ilaahay yiraahdo ilaahay waxaan ka baryeynaa sanadkan sanadkii oo nabadda ilaahay wadankeena ku soo oolay inuu noqdo hadduu ilaahay yiraahdo inaan ciidaha soo socdo iyo ramadaanka iyo inaan si fiican ku ciidno hadduu ilaahay yiraahdo inaan udxiyada aan ku khalano gurigeena anagoo joogno oo aan arkeyna insha Allah taala hadduu ilaahay yiraahdo waxaan jeclahay inaad ka faa'iideysateen waa walaalkiin marna wiilkiin Baazi Xaaji Busuri Universal TV